cadceed baa saaka jirta wanaagsan. cadceed mid halkan waxaan arkaysaa cadceeda lagu odhanayo waa beenbeen. cadceedu way jirtaa laakiin qabooni waa jira. xaafado yaroo baan hudhay buuqaan soo galay. Shista shiista yidhahdaan xaafadan yar shiista yaa ma kista dad danta iska akhrida Soomaali kista maahan meesha iskuulkayga yar ku yaallee iskuulka baatajaada ka soo dhigto OBCD meed wuxuu xasaasay ugu dhawaaqi jireen meeshaan kasoo yaro dhigtay weeye afarta kelmadoodaan aqaano meeshaan ka bartay mahan waaye boowe mahan waaye halkaa ku qaran shiista galeriya mashaa tiirka dhinaciisi mool waaye boowe mool waaye muuqaalka xitaa si fiican u arkaysaa ma garan karo tallaabo dheereynayaa waxbaan is qabanaynin caadir socod iyo waktigii meesha labadaasaan is qabani waa ku khasbana marka dhulka midaan cidlo ka dareemay waa dhulkan midaan cidlo ka dareemay soo dhex galay suuq yar lama waxaan jeedaa moolkii galeriya waxaan markii dusha ka mariyay xagga shisha ka mariyay hadda waan soo dhex galay meesha waa iska bannaan tahay halkan subaxii markaan ordigan iskoolka ordi dadka waan is jiiraysaa inkastay dadka o dhan wada kala hayaan oo la is jiiri jiray halkaas sare waxaa ku yaala biblioteega ama maktabadda librariga marinkayga ma hadda meeshani waxaa sidiyunba balla sii marba inta badan waxaan aada u mari jiray waqtiyadanta meesha shaqeynaysay iskool shaqeynayeen meesha dhex ordayay exercise-kayga yarana waxaa gebigayga balaasi midhaba lagu soo taagay oo dhiirigelin midhan dadkani waxaa ku idhaa bal ka waran waxaa soo qal inaad ku qorqortayo gebigiisa waa wada khalada saygatan waalu waxa weeye tob weeye laakiin waxaan doonaya inaan ku yaro saxo meelaha aad yacnihii qaladay waayo waan ku dhawaari wanaagsanta intaad samaynaysa mar raba ka odhan maayaan waan kudhi digadaati ka odhan maayaan moogta waad fiican tahay waa loo baahanya dhiirigelintaas baan kudhi kor baad si soo qaadaysa koonan yaro kooban baa ka soo dhex lahay dadan ka soo galay sii jeedkeeda kasoo horjeedkeedan u jeeda aan ka soo galay kaana waxaa ku yaalla masaajidka khadiija la idhaayo subaxa jimcaha markaan ka soo gaari waayo kaa xagga xaafadayda ku yaalla in kaa ku tukada markaa dee waa nafis nimca lagu jiraa nimco dadkeenna waxaan leeyahay soomaalidu meel weli joogto waa laga qaylinayaa waxaa leeyahay war waxaan baalkan fayraskan waa wax jira ee baalka iska ilaaliya iyagoona rawaayad bay ka dhiganayaan waxaa arkayay qaar intay qufac soo duubaan lahaa khayr hele faafi oo mid kale naga soo jawaabi uu leeyahay waan kaa hayaa khayr allaha ku siiyo isniinta qufaco wasaaradda caafimaadku halkan waxay sheegaysay dadka ugu badan
qoomiyadaha ugu badan waxyeeleeyay inay Soomaalida tahay iyo qoladan maxay Ciraaq bay ahayd yaa qoliyaha ugu badan bay ahaayeen Soomaalida number 1 haddana waxaan kaftan iyo riwaayad bay ka dhiganayaan waxay ku leeyihiin war waxaan wax soo siirridna reeb raac ugu daran waxay yiraahdeen waxaan waa kuudiyo annaga soo magac kuudiyo la dhaawna soo mara meesha waxa uu yahay nagu waalina waxaan ku ciyaarina yaa islaam waa tahay alxamdulillah waa run wax walba inaad tiraahdo ku asiiba laakiin de wax walba waxa ka fiican inaad samayso iyo taxadarkeeda inaad taas samaysan waa muhiim hadii aad taxadar samayn kula kacaysa dee camo cadcadda baan ka hor imo indhihi yar kala qaadi kara maayo maraayad baan u baahnay malaha mid hara isu qoraato anigu dadka in yar baa afka xidhan in yar markii dadku ka kala yaraaday in wala wuxuu xisirwar qolkii qabtay bahalka oo fadhiisteen iska nafis aniga kuma xidho gebgeyga ma aan kaliya afka xidhaa mar ma xidhaa markii ilaahay ma kan idinka wacdiyaan leey bahalka iska ilaaliya kuwaas ma kamid ah kuwa aan wacdiyo ayuu ma kamid ah anta yahay inoo sahlan yaa ciyaarta bahalku ma wanaagsanaa lagu ciyaaraa ma wanaagsanaa marka waxaad leeyahay ka taxadara naftiina iyo sheekada wax maraysa dad naftaada naaday ehelkaaga dadkaad guriga ugu tagayso qof waayeelaa baa jooga oo aan xamili karaynin marka dhaqankeena waa badan yahay dadku waa badan yihiin qof waayeel kaliya maaha waa qaabka waayeel dad badan baa jooga marka in waayeelka la ilaaliyo ayaa runtii aad u wanaagsan dhalinyarta kuma dhicin waa huuhaa ama way jirtaa ma oo kugu dhacaya soo xaq kale kaga baxaya doono yaa haddaad adkaysi u yeelato alxamdulillah marka almuhim wuxuu ku soo ururaya hadalku in naftaada haddii aada daryeelaynin marka hore naftaada daryeelkeeda muhiima xaq bay kugu leedahay haddii ka aad samaynaynin ama afarta kula dhashay iyo afarta ku waalida ku dhalay kuwa ilaali kuwa sam kaaga baahan xaq dhowr iyo nafahooda aad gargaarso wax kaliya u qaban karaysaa waa inaad ilaaliso oo aad naftooda u ilaaliso waxyaabaha qofku kaga taxadiri karo naftiisa oo ilaalin karayo waxaa ka mid ah inuu kor u qaado laba shayba wata koobaad nadaafadda mar walba nadaafadda qofku ku dadaalo midda labaadna waxa weeye difaaciisa inuu isna ku dadaalo waxyaabuhu ku caawin lahaa difaaca jidhka فيتامين سي هذا كبدان حتى هيلي كريسان دي نوعان كاسا نايتشر كي كاسا في عنا هنا waxyaabahan kulul oo dhanee maartay shaahiyo waxa ku darsano kuwa ugu waa muhiim sinjibil ha noqoto dhagayar ha noqoto qorofal ha noqoto aasoo ka caawinaya iyo naftaad nasiisa wade naftana inaad nasiisaa iyo aad hamaleel ku dilintii hadii lagu stay home inaa habeenkii maalintii kala bedeshay maaha yaa markaas way wax tar yeelanaysaa naftaada aad awood badan siinaysaa ay wax badan ku xakamayso markaas waa muhiim markaas si hal ogaado waxa kale oo yiri muhiima in aanad samaynin inaad meel fadhiyin muddo badan
يعني جميع السميسان الربع دقدقاق بدن inaad samayso inaad iska soo yara lugayso meelaha ay dadku ku yar yihiin loo baahan yahay waxay caawinaysaa ku dheedid qofka active-nimadiisa inaad qof firfircoon ahaato marka waa muhiim taasina marka halkan yaran marayay markii hore aan muuqaalka ka soo duubayay dadku markay joogeen waxay sameynayeen aad ugu badnaayeen dadku way lugeynayeen way ordayeen baaskiil bay wadeen insaanan saaka arkin marka wax kala maaha waxay daryeelayeen naftooda yaa innaga naf jacayl baynu odhanaynaa moogta gaalada waxaa odhanaysaa adduun aakhiraan waxba ka dambayno adduun bay ilaashanaya tan yaa kuu diiday inaad adigu waan kudhi naftaada dariis yaa kuu diiday wax waliba xaq bay leeyihin soo maha xaq bay leedahay naftani yaa sida caafimaadkaaga u joogtiisana inaad wax badan samaysaa waa muhiim innagu socodka waxba uma naqaano runtii agaad bu wanaagsan yaa aad bu wanaagsan socodka laba saddex qof baynu socodka kula talinaa inteena kalena ma samayna innagu marka socodka aad buu muhiim yahay aad buu runtii muhiim yahay shaasi yaacaya kalena loo ordimayo waa walba naftiisu ka taxadiraya nin walba naftiisu ilaalinaya yaa 2 mitir jirso laakiin banaanka inuu wada lugeynay ama wada orodnay marka arrinka u dhug lahaada oo ka warhaya